Qoraxdhacu waxa uu aad ugu dhowaa dhulka baaxadda weyn ee lamadegaanka Carabta, meel ka mid ah jasiirad la mooda. Aniga iyo saaxiibkay waxaanu ku dadaalaynay inaanu baabuur 2W Sedan ku wadno waddo wasakh oo cidhiidhi ah oo tamuux badan, annagoo oo raadinayna goob aanu teendho ka samaysano. Gaadhi jiib ah oo noocii hore ee militariga ah ayaa markaas nooga muuqday meel aad noogu dhow oo nooga muuqanayay muraayadda dambe, isagoo oo muujinaya niyadjabka darawalkiisa ee ku aadan waddada la xanibay oo si gardarre leh u raadinaya inuu hore u socdo. Markii aanu u muuqannay inaannu shisheeye nahay, cadhadii ka muuqatay wejiga ninka Carbeed waxaa isla markiiba bedelay dhoolla-caddayn weyn oo raalli ahaansho iyo xiise leh. Hore ayaa uu si dhaqso ah noogu dhaafay, waxaana uu isu taagay sekadiisa oo uu ka soo degay gaadhigiisii, waxaana uuna faray in aan hortiisa istaagno. Waxa uu ahaa nin Carab oo iska caadi ah oo dhowr iyo konton jir ah, kuna labisan dhar cawlcawlan iyo koofiyad buluug ah. Sidii filashadayadu ahayd, waxa uu isu soo bandhigay inuu yahay Maxamed. kaliya waxaan raadinaynaa meel aan seexanno habeenka. Maxamed ayaanu ku qancinay ujeeddadayada. Waxa aad joogtaan dhulkayga, ayaa uu ugu dhawaaqay si xamaasad leh, isagoo oo nagula hadlaya af Ingiriisi jajaban. Waxa aad tihiin martidayda, isoo raaca, ayaa uu raaciyey, isagoo aan wax jawaab ah sugin. Dib ayaa ugu soo noqday jiibkiisii oo uu sii qaaday waddooyinka bacaadka ah. dhowr daqiiqo kadib waxa aanu tagnay guri aad u yar. Adhiga iyo geelu waxa ay ku filiqsanaayeen dhinacyadiisa, waxaana ay u daaqayeen si caadi ah, wax kasta oo yar oo ay daaqi karayeen. Wiil adhi jir ah ayaa meel hadh ah oo uu ku indhacasaysanayay ka soo booday, markiiba oo cagihiisa ku booday isagoo oo yaaban markii uu sayidkiisu u yimi si kadiis ah oo aan qorshaha ugu jirin. gaadhigii ayaanu ka soo degnay, waxaananu isha la raacnay jawiga cajiibka badan iyo badweynta tamuuxda ah ee aan cidhifkeedu muuqanayn. xagasha hoose ee qorraxdu waxa ay si fiican oo diiran u taabanaysay tamuuxda meel walba taal. Kani waa dhulkaygii, alxamdulilah. wax kastoo aad aragtaan waxa iska leh qoyskayga, ayaa uu u yidhi Maxamed si ismahadin ah. gurigaygu waa gurigiinna. waxa uu ku daray, meesha aad doontaan ayaad teendhadiinna dhigan kartaan. waxaannu si weyn uga mahad celinay soo dhowayntiisa aadka aanu u bogaadinay. waxaannu ku heshiinay inaannu joogno, waxaanaannu ka tagnay gaadhigayagii oo aannu fuullay kiisii. waxaannu si fiican u fadhiisannay kuraastii jiibka qadiimiga ah, waxaananu ku raaxaysannay socdaalkii gaabnaa ee uu nagu soo wareejinayay hantidiisa. waxa uuna geeyey dhowr meelood oo ka mid ah seerayaasha yaryar ee leh beeraha cawska oo ah dhul engegan. waxa kale uu noo qaaday safar gaaban oo nagu geeyey marinka kuwaatarka madhan rubcul khaaliga, kaasoo xuduud la leh dhulkiisa. midda ugu xiisaha badni waxay tahay, waxaannu booqannay gurigii hore ee qoyskiisa. muuqaal qurux badan, dhismaha barhkii waa uu burburay, dhoobada iyo dhagaxana waxaa ka taagan munaarad. waannu ku dhex soconnay si aannu u daawanno, annagoo ilaalinayna, taxadarna ka gelayna in aan derbiga ama saqafka duugaahi isku dhicin. waxa uu si gunuunuc leh uga faallooday diidmadii dowladdiisa ee ahayd in ay maalgeliso dib u dhiska dhismahan oo qayb ka ah barnaamijka ilaalinta hiddaha qaranka. mugdi ayay ahayd markii aannu ku soo laabannay bartayadii hore ee gaadhigayagu yaallay. waa uuna keenay, kadibna waxa uu u hulaalay gurigiisa magaalada, isagoo oo noo ballan qaaday inuu si dhaqso ah u soo laaban doono. teendhadayadii ayaannu ku rakibannay gurigii yaraa dhinaciisa, waananu sugaynay. sida caadiga ah waxay ahayd inaannu diyaarsanno cashadayada, balse taasi waxa ay noqon doontaa mid aan loo baahnayn. inkastoo aan marar badan ku celcelinay inaan haysanno raashinkayaga oo aan loo baahnayn inuu shaah diyaariyo, haddana waxaannu hubnay in uusan soo noqonayn isaga oo faramadhan. sidii aannu filaynay waa uu soo noqday isaga oo sida 2 boorso. waxaase aananu filayni waxa ay ahayd inuu soo laabto isagoo uu la socdo gaadhi labaad.
maxamed waxa uu nabaray qaar ka mid ah carruurtiisa kuwa uu awooga u yahay wiil uu sodog u yahay iyo xaaskiisa kuwaasoo dhammaantood ku soo biiray cashadan bannaanka ah waxa ay tamuuxdii saareen maro weyn waxaana ay duldhigeen weel kala duwan oo cunto ku jirto waxaannu samaynay goobaabo ama wareeg oo waxa aanu fadhiisannay annagoo oo cunayna oo ku sheekaysanayna iftiinka dayaxa oo yaraaday hoostiisa xaaska maxamed waxa ay fadhiisatay meel ka baxsan goobaabintayada mana ay odhan hal kelmad habeenkii oo dhan waxaa laga yaabaa gabadha reer galbeed ee feministiga ah ee sheekadan akhrida inay sharaxaad kala saarto balse tani waa caado deegaan oo soo jireen ah sidaa daraaddeed fahamka waaqaca dhaqan ee gaarka ah waxaaba imanaysa inuu qofku mahadiyo ficilka maxamed waayo nin da'da maxamed oo kale ah maba dhacdo inuu xaaskiisa u saaro bannaanka si ay rag ajnabi ah ugala soo cashayso bartamaha saxaraha waqti ayaa tegey xeradii waxaa ku hadhay leefleef iyo jabab roodhi ah wiilkii dhallinyarada ahaa ee uu sodog u ahaa maxamed ayaa qof walba ku qaaday gaadhigiisa oo ku noqday gurigiisii magaalada maxamed waa uu sii joogay oo kolba saddexdayada ayuu shaha u shubayey kabacdi waxa uu nooga warramay waxa mashquuliyey fakarkiisa maalmahaas dib uma sii dhigi karo intaa inka badan waan gaboobay sannadkan insha allah waxa aan go'aansaday in aan ugu dambayn guursado waxa uu si xamaasad leh u qanciyey layaabkii aanu ka qaadnay waxa uu ula jeedo guur mar haddii uu mar hore guursaday waxa uu caddeeyey inuu dabcan ula jeedo xaas labaad waxa uu nooga sheekeeyey sida ay isku guursadeen xaaskiisa hadda iyadu dabcan waxa ay ahayd inadeertii rumaad sida nin kasta oo dhaqankiisa oo kala haysta waxaa ku waajib ah inuu guursado gabadh ka tirsan qoyskiisa dhow isagoo oo weli ah nin dhallinyaro ah waa qasab inuu xaaskiisa koowaad u doorto mid ka mid ah ilmaadeeradiisa koowaad keliya nin nasiib darra ku dhacday oo aan lahayn ilmaadeer koowaad ayaa bedeli kara oo ku beddelan kara ilmaadeer labaad marka la eego sida badi ragga waxa uu lahaa ilmaadeero badan oo looma baahnayn inuu raadiyo cid kale oo uu ka raadiyo meel ka baxsan qoyska waayo may ahaadeen waalidkii kuwa aqbala ama ka raalli noqda arrinka xulashada mid ka mid ah ilmaadeeradii oo weliba isaga ku habboon ma ay ahayn hawl fudud gaar ahaan maadaama uusan arki karayn wejiyadooda arooska ka hor waxay ahayd inuu gebi ahaanba ku tiirsanaado fikradaha hablaha walaalihiisa kuwaasoo loo oggolaa in ay arkaan wejiyadooda hablaha ay ilmaadeerka yihiin oo si habboon ay ugala taliyaan arrintaas isaga nasiib wanaag waxa uu qaatay go'aan sax ah waxaana uu ugu dambayn ogaaday in inadeertiisa uu doortay ay tahay gabadh qurux badan oo ku habboon gees walba waxay ahayd xaaskiisa rasmiga ah waa uu jeclaa oo ka fadilay ruux waloo kale oo adduunka ku nool balse waqti waa uu socday iminka waxa uu hanqaltaagayaa xaas labaad inuu helo dhammaan asxaabtiisa oo qaarkood ka dambeeyey isaga waxa ay hadda leeyihiin 2 xaas qaarkood waxa ay leeyihiin 3 xaas halka kuwa kalena ay ka leeyihiin 4 dumar ah isaga ayuunbaa hal xaasle ka ahaa waxaana uu damacsanaa inuu dib isu eego markaa miyaad qorshaynaysaa inaad guursato saaxiibadda ayaan weydiiyey mar hore oo uu nagu waday gaadhigiisa jiibka ah ayaa uu nooga warramay saaxiibtiisa Filibiiniyada ah saaxiib wanaagsan ayaa isaga kaga soo xidhay dhanka internetka sidoo kale wuxuu ka caawiyey hawsha ambabaxeeda sida ay uga iman lahayd Filibiin una iman lahayd dhulkan Carbeed waxa uu ka furay dukaan dahabka lagu gado caasimadda si ay uga shaqayso waxa uuna iibsaday guri u dhow si uu u dejiyo waxa ay ahayd guul aad u weyn iyo dib u dejin cajiiba ma ay noqon oo keliya meheradu mid si buuxda u daboosho baahiyaadka gabadha balse waxa ay sidoo kale soo saartay macaash fara badan kolkii hore baahiyihiisa jinsi waxa ay ku koobnaayeen safarro sannadle ah oo uu ku tegi jiray koonfur bari Aasiya haddase waxa uu aadi karaa caasimadda waqtiga uu doonana
doonana uu ku soo qaadan karaa. kolkaa kadib markii aan weydiiyey bal inuu damacsan yahay inuu guursado wuu yaabay sabab, laakiin dabcan maya ayuu ku jawaabay. waxa uu damcay inuu sii sharaxo isaga oo leh in kastoo uunan haddadan ku koobnayn qoyskiisa, haddana inuu guursado gabadh aan carab ahayn waa wax aan meesha oolin gebi ahaanba. saaxiibtiisa filibiiniyadda ah si fiican ayaa uu u daryeelay, waxayna ku lahayd boos fiican noloshiisa kaas oo ay sii hayn doonto, laakiin waa intaasun wax kale ma sii dhaafsana. gabadh kasta oo loogu yeedhi doono xaaskiisa waa inay ahaataa muslim carab ah oo ku habboon. waxa uu si kooban uga xamaasad hadlay sicirka haweenka lagu guursado dalkiisa baryahan dambe, isagoo oo markii uu xaaskiisa hore guursanayay bixiyey lacag u dhiganta $600 marka loo eego lacagta waddankiisa, balse waqti xaadirkan uu qiimuhu noqday 3 jibaar. wuxuu diyaar u ahaa inuu tallaabo weyn hore u qaado. waxaa jirta gabadh labaad oo ay ilmaadeer labaad yihiin oo uu damcay. hore ayuu u maldahay ujeedooyinkiisa. wuxuu si wanaagsan u eegay rajada dhankeeda. dhowr bilood gudahood gabadhu waxa ay dhammaynaysaa waxbarashadeeda, waxayna ku laabanaysaa qoyskeeda. waxa uu markaa u socday haddii alla idmo inuu si rasmi ah aabbaheedu weydiisto. wada sheekaysigaa dheer oo madadaalo badnaa habeenkii ayaa hore u socday. waxa ay ahayd wakhtigii la seexan lahaa. maxamed waxa uuna weydiiyey markii ugu dambaysay in aanu ku adkaysanayno teendhadayada oo aanan guriga u raacayn. kadib waxa uu nagu yidhi habeen wanaagsan oo waa uu baxay. waxaanu toosnay subaxnimadii hore si aanu u daawanno qorrax soo baxa quruxda badan ee ka muuqda dusha sare ee taagooyinka ciidda ah. wax yar kadib maxamed waa uu noo yimi. alaabtayadii ayaananu xirxidhannay, kadibna gaadhigii ayaanu fuulnay. waxaananu u raacnay gurigiisa, halkaas oo naloogu diyaariyey quraac aad u heer sarraysa oo ay xaaskiisu diyaarisay. waxaannu aad uga mahadnaqnay soo dhowaynta aadka u heer sarraysa. kadibna waannu sagootinay, waxaananu dib u sii qaadnay waddadii saxaraha carabta.